أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم وكيله. دمان أمد الصوماليات ملي جوغان معارض محافظ والسلام الدل يدبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيجارة نوحن السلام يا موادين الصوماليات سوحي القامي هباني مال وتاجن مدني مضى iyo isu celinta iyo wacyigelinta ummadda Soomaaliyeed oo ah tiimka midnimo qaran iyo qof kaste oo ku taageera fikirkaas oo maaragtay la qaba dhammaan waa idin salaamay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan rabaa inaan la sheer gareeyo qisadii horta aan muddooyinkan qisa aan arag bacaawe aan ku arkay halkan runtii aad iyo aad ii farxad gelisay aad iyo aadna maaragtay aan ilaahay uga baryay inay Soomaaliya dhan ka hirgasho ilaahayna Soomaaliya iimaanka ku soo celiyo iimaanka ku soo noqdo in bay ku heli karaan ummad ilaahay waafajiyay baa maanta horta aan ku arkay. qisadaas waxay ahayd qiso macnaha ka dhacday gobolladan Soomaaliya magaalo ka mid ah oo wiil jareer weyn ah oo wadaad oo macnaha caruur iyo reer lahaaba waxa dilay wiil yar oo kuray ah iska dhalinyaro cidii marka sidii caamka ku ahayd wiilkan wadaadkan jareer weyn wuxuu dhex deganaa goldogo meel yiraahdo oo leelka soo degan yahay. qisadan inay mar hore dhacday baa laga yaabaa balse lagu soo celiyay hase ahaatee waa wax u baahan isxasuusin iyo in lagu soo celiyo oo la reality aad iyo aad la isugu soo celiyo u baahan weeye. maxaa yeelay waxay ku tusaysaa macnaha cadaaladda wanaageeda iyo sharafteeda iyo macnaha waxa ka dhalan kara cadaalad waxa ka dhalan kara ilaahay diintiisa la raaco waxa ka dhalanaysa cadaalad baasaa ka dhalanaysa waxa ka dhalanaysa nabadgelyo waxa ka dhalanaysa baraare waxa ka dhalaya horumar waxa ka dhalanaya macnaha maxay tahay wanaag adduun iyo mid aakhiraba. taa macnaheedu waxa marka keenaya markii aan daba marnay waxaad aragtaan dad islaam inaan ahayn oo dad ilaahay maaragtay intaasoo bilyamis oo adduunyada dusheeda ku nool fursad iyo iftiin uusan siinin isagoo u awooda ayuu annaga nagu imtixaamay oo na siiyey oon ku dhalanay waana bini'aadanka caadayba u leeyihiin anigu waa u fiirsaday qofku meeshuu ku dhalay ku dhasho oo ku koro faa'iidadeeda ma fahamsana. barwaaqada marka alla siiyey annaga faaraqadii alla na siiyey oo ahayd diinta islaamka oo xaliimka ah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam runtii ma aanaan fahmin macnaha benefitkii ay lahayd siday ahayd uma aanaan qaadan ugumana aanaan faa'iidaysan. waxaan u aragnay waa ka indhala-anahay bini'aadanka hadda tusaale haddaan ka soo qaada carruuraha halkan ku koray fursadda ay halkan ku haystaan oo carruurta Afrika joogta aysan haysan ma garan karaan nimcadaa ma garan karaan maalin walba isdilahayaan waxba baran mahayaan magoogyo waaweyn weeye. maxaa keenay